ولو جرايه كجوج جمعنا وقابنا وحين كله كيجي وحن أرجدان كوب سوري أنا نبوساري صوبا بالجليل كلكم مريا جليل وسي أورتو بوسدوي على بوساني كنت تجي كالشران درات كالحسن دونتاني قربي جمالي الوري وحلي كذيبة تبهير من لقيتو جيو قد خبانا هايين إذا كان تندارك وزيدك وحول مين أنا قرأ لفكي جنب واحدا كالأخطاين شنو هذا قلبي دبشوعين يقول قولي دواين قبودا حكيم تلك عداكي أنك كاري كفاني يحبس كامري ولي بكوداتو هي قبس كوابي يدعو سيجري 2 5 2 6 قدتني لكانوا غمرشيو على الجمر 2 قال لو مولي رسولي قبانا ليا قل حالي وقال يوسف وافع الجنبولي ويركو على قبيتنا من كان جامعه كليي يسونا كفتيري قبانك على كيمودايين مركو كيد قريبا من كان فريقا تلايي إذن الله أنت إلى قينا ينقع الكيمودايين منك أنت لك جري كجيدا نوحالي إذن قرندو إيبو لينقع الكيمودايين قريان كسكاشي ونكان قبل معانسي حشي إذن دحنت إيبو قوليان قع الكيمودايين إن كان عربت قضحت وقبري إن كنا دسيي إذن ورن كايرا كاديان كعلك مدايين قبتو جعلادي إن كان كاريد وميرشي إذن سيدي يقول سدان كعلك مدايين مركي لك قرصونا ننكي عنو كربيني إذن شري كل دهي دبران كعالكين بودايين قاسكي يقوتد مركي كبقبي ينبا من كان ديلو غريبين قادكي لشي إذن قلوبك إيو ويران كعالكين بودايين كوانكي مرودي جنن كان كلب كسيداي إذن كوز لباح يقول لنك والكي مزايم قرقر شادكي أنو ذرين كبنا روساري إذن كيجي سو قوران كوالكي مزايم من كان حليسي بدنا قدر كنسو تاقي إسقنا هشيدي بوشان كعلكي مزايم قرون ديمت نيديون كان قروفو آبيجي إذن قهوة إيدي كبشان كعلكي مزايم قالوك تيار عديون كان قدر كوعدي إن بعيد كجيس توقفتي وكذو ذيا إذن جاي ليدي تشان كعلك مدايين بريون كي أنقوات قر والبودي إسقنا يقول قوليان كعلك مدايين قلب كليو طاقين كي قبائي كنتي إذن جنف كاتي قدوبيان كعلك مدايين soo dhawaada aad iyo aad baan idin salaamayaa ummadda Soomaaliyeed soo dhawaada sheekooyinku waa sidii gobolada bari baa hadlaya oo gacalkay moodayay waxa weeye hargeysada looga soo dhiibay gaas iyo kabriidka ee ay wada lahaayeen
ee dabeeta la leeyahay sool ha la gubo sanaag ha la gubo togdheer ha la gubo waxay la hadlayaan berberiya hargeysa maaha aniga dadkan hadlaya waad ogeydeen xaqoodii baa lagu cunaya oo leeyihiin daaye waa caasimade daaye waa sidane iyaguna waxay leeyihiin reer barigaa la soo gubo markaa gacalkay aan moodayay waxa weeye waa hargeysa iyo sunta laga soo dhiibayo waynu ognahay imika soo dhawaada bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim bilaayo dhan ka bismillaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto oo aan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan salaamayaa kuwa reer waqooyiga meel kasta ay joogaan oo ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu lifekaygana wuxuu ku saabsan yahay sidaa ku aragtaan taliyaha bilayska ee burco oo loo soo diray mashruuc lasoo siiyey isaga iyo bilayskiisa kala qaybista burco inay u sameeyaan kala qaybis iyo xariijimo u dhigaan oo nimankan kornayladii markay arkeen gobolkiioo madoobay ay siinayaan oo ay doonayaan inay dadka kala qaybiyaan gacalkay si aan moodayay wayna kaahin gobolkii uu dhashay iyo inasulub gobolkii ay u dhasheen ee ka soo jeedeen ee dadkoodii ahaa ee maatadoodii fadhido ee ay maatadooda isku dirayeen intay bajad ka soo qaataan magaalada hargeysayana biixi taliyaha bilayska waxaan uga digaya intaan gurigaaga lagugu iman waa digniintii labaadan ku siiyo annaga shacabkayagaa nala soo hadlay halkaana waxaan u fadhinaa shacabkayaga inaanu xaqa u sheegno dulmigana ka duno haddii aad isku daydo oo aad isku daydo inaad kala furfurto ummaddaa isu timi ee xaqeedii raadinaysa wixii kugu dhaca shaqadayda maahee ogow waa mar labaadkii aan kuu sheego xalay goortan soo daray ee xumayd waa ogeydeen arrinkani waa serious wey waxaan u sheegayaa shacabka burco taliyaha bilayska waa garanaysaan gurigiisa mar labaad hadduu isku dayo isaga iyo askartiisa nin walba waad garanaysaa inamadiinii yaryaraa wey inamadiinii yaryaraa weeye nin walba waad garanaysaa ugu taga xaafadda ku soo booqda waa garanaysaa guri walba qori baa yaal waayo xaqiina waa loo halgamaa waxaa la doonayaa in la baylahsado oo ina muraad iyo gruubkiisiina sumanbay wadaan waa inaydan waxaa yeelin meeshan waa laysugu imanaya dadkii lahaaba isugu imanaya degaan baa leeyahay ummadan la kala qaybinayo waxaan leeyahay laydi kala qaybin ee afarta munaafaq sidaa u soo erideen iminkana u seeriye taliyahana waxaan leeyahay waad ogeyd kii hore halku maray waad ogeyd waa lagu wataa mala caleentaadii baa caddaatay ninkan isku daya bili aadmigu inuu kala qoqobo oo lacag ku qaato oo kala jijabiyo ya waad arki doontaa caruur yaryar baa la waayay yaan loo kuwaagaa buuraa lala gelayaa ogow kuwaaga yaa wallahi buuraa faqayib lala fulaya haddaan kuu sheegaya wax runta idiin sheegaa weydeen taasi waa qodobka labaad wuxuu yahay ninkii boqor buur madow waa ogeydeen hawlihiisii buu bilaabay hawlihii celaf weyn way bilaabmayaan layma sheegin ha odhanina annagu halkaa waxaanu u fadhinaa ummadda ilaahay ee dhiiggeeda la qubayo ee la ysku dirayo inaanu waxu sheegno boqor buur madow iyo nimankii u dhaqdhaqaajin jiray ee odhan jiray dadka gaada hawlihii baa lagu socdaa imikaba fidmada halkaa ka socota waxaan u sheegayaa reer sanaag waxaan u sheegayaa garxajis iyo habar jeclo imikaba fidmada halkaa ka socota shaqa kubeynayno shaqo aanu ku leenahay ma jirto waad ogeyd 4 sannadood baa la isku dirayay dadka way bilaabantay durba waa la suguuxayaa waa ogtihiin shaqo aanu ku leenahay ma jirto xalayna baaq baan ka soo jeediyey imikana waa idiin sheegaya rag baa dhiigga dadka isku qubaan mooyaane aan seexan karin ma seexan karaan imikaba ha la kala gaadho imikaba waa la suguuxayaa imikaba waa naloo soo warramay insidekaa nalooga soo warramay reerahaa noo soo warramay labada qayboodba in la isku dirayo oo lasoo dhex galay oo wixii la wado yaa naloo sheegay
baaq baan u dirayaa ha dhowto intaanay dhicin balaayadu hor la qabtay leedahay daba la qabto ma leh imikaba waxba ma dhicin waan idiin sheegaya laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah nalooma sheegin yaan la odhan nalooma sheegin yaan la odhan nalooma sheegin yaan la odhan madiga islaamka ah waanu sheegnay imikaba wataa waa lagu jiraa boqor buur madow telefoonkiisii buu bilaabay waa ogtihiin nalooma sheegin ha odhanina halkaa waxaan u soo fuulay oo anaalada u soo gallay oo waad ogeyda waxay naga qabsaday oo wixii naga gaadhay waa ogeydeen imikaba waa la wadaa ummadan in la isku baabi'iyo ragna qadeeyaan dhiigna qubta un baa la doonaya taasina waa ta kale sanaag iyadana weerar baa lagu wadaa ceregaabo iyo buuraheeda kuuriyaankii iyo ilmo cali shire iyo wasiirka macdanta iyo tamarta iyo ina bixiya dirkiisii waa soo dhigteen waa soo dhila dhaansadeen yaa la isticmaalaya garweyn baa la isticmaalaya yaa loo isticmaalaya iyadaa laysu isticmaalaya imikaba layma sheegin ha odhanina ina xaaji nuurow waad aragtaa da'da kuu hadhay ma jirto waa lagugu soo maqan yahay waad ogtahay waa inaad shacabka wacyigelisaa shacabka waa inaad wacyigelisaa buurihii inanka yara ina maama malyuun mashruuc uu ka qaatay ina biixi waynu ognahay inuu garweyn isku furfuro oo kala furfuro oo buuraa la galo inankaa yar ee markii horena bajedka lasoo siiyey ninkii adeerkii yahaa riday ee aa ogeydeen imikana qasbu intuu ka soo qaato gaas iyo kabriid ayuu la yimaadaa ceerigaabo iyo sanaag kula wareegaya sidii inankii yaraa asli maydi aan ka qabanay ee ogeydeen waayo waxa gardaadiyo wax u dhigay ina kaahinayeena sulub nimankii dee burco ku caana malay dhiigga burco ina kaahin mujrim kaahin ya iyo ina sulub nimanka xeeraan iyo yahmiinta ee ka baayac mushtaree dhiigga bari nimankaasaa soo gardaadiyay inankaa yar wuu ku soo maqan yahay inankaa yar ha laga soo saaro ceerigaabo fidmada wada ina maama malyuun afhayeenkii hore madaxtooyada inankaa yaree garweyn ha la qabto nin wanaagsan baa dhalay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye oo reer ceerigaabo oo nin bari ahaa waxaa la yidhi dabbaa dambas dhala isaguna waa ninkaa reer galbeedka ah ee reer galbeed ku shaqaysanayo miyaad weli aragteen nin lagu shaqaysto oo la leeyahay gurigiinii lacagtaa qaado niman reer bari mooye cid kaloo lahayaa ma jirto kaa yarina waa sidaa kow boqor buur madowna wuu bilaabay wixiisii iyo shuwaaladiisi buu soo xidha colaada iyo telefoonkiisi uu ku hagi jiray taasina waa ta kale ururadan iyo waxaanaan maanta idinka sheekaynaya wax ururaaho jiraan ma jiraan ninkani iyo salabaan yuhuud waxaa la doonayaa in nimankan dee baarlamaanka ee mooshinka ku socda in la niyad jabiyo oo wax la yidhaahdo sidan iyo sidan weeye oo la yidhaahdo ururaa la furaya oo waxan markaa nimanka baarlamaanka waxaan u sheegaya ixtiraan aa ka heshaan daa ina biixi inuu idin baayaco oo idin yeesho oo idin lahaado oo kuraasida usoo farfadhiisataan buu ugu talagalay maalinta laydin dhaariyo ee aa kuraasida fadhiistaan laydin dhaariyo ninkaa mooshin ku soo ooga oo ninkaa imbeach meesha kaga tuura inta qura ee dadkaas ku badbaadaya waa intaa ninkani ina bixi meesha ha laga heli ninkani anigu waxaan arkaa dagaallo sokeeye meel kala qabanayaana ma jiro ninkani waa nacas been wallaahi idiin sheegi maayo caqli male ma arko in xaafidaha la isugu imanayo ma arko laakiinse markuu xaqiiqada arko ninka fulaysan ma jiro wuu cararaya haddaan idiin sheegaya marka waxaan leeyahay baarlamaanka oo maalinta laydin dhaariyo waa ninkaa imbeach kusoo rugtaan waa ninkaan meesha laga tuuraa aayo kale male waayo inuu isku kiin diro oo idin kala diro oo ku kordhisto oo yidhaahdo 2 sanadood salabaan yuhuuda uu igu dar iyo sheekooyinkiisii ayuu wataa ninkani 4 sanadoodna malqacad meel bari umu dhigeen malqacad bal waxaasuu idin qabtay dheh bal ina sulb waxaasuu idin qabtay dheh bal ina kaahin waxaasuu idin qabtay dheh ma jirto laysku kiin dira mooyaane in laysku kiin diro oo dhiiggiina laga baayac mushtariyo oo colaadiina laga baayac mushtariyo oo jirib laysugu kiin dhufto oo qoloqolo laysugu kiin dhufto oo wax laydin kala qaybiyo oo xuduud laydin kala dhigo idinkoo xaqiinii lagu cunayo xaqiinii imika u soo toosteen ha yeelina imbeach
weliba reer barigo kaliya ku filan oo imbish ku soo qaada nimanka reer bari ee xaqooda lagu cunayo ee la siiyay gobolka Sanaag ee ugu weyn 2.5 1.5 na Sool 7.5 na Togdheer idinka idin taala sida ninka aakhiro ugu diri lahaydeen iftiin kana uga saari lahaydeen aakhiro ninka sida ugu diri lahaydeen waxbuu rafacayaa baa la yiraahdo waxbuu isku shaandhaynaya waayo waa naf meel ay ka baxdo weyday waxba uma hadhin waxan baswayaal waxaan u keenayaana qaar waxaan maqlay waa la eriyayaaba iyaga qaar waa la eriyayaaba aan maqlay ila waxa ma kala qarsano gambar baa lagu fadhiyaa waxba ma qarin karo wuxuu madaxtooyada ka sheegayo markii waa imanaya waayo ummadani midba midba wuxuu yahay imika kuwa adeerka rume u yahay ay garxis xisuyi ka garxisna habar jecel xisuyi sabaroon bi xisuyi dhulbaantii xisuyi riyaarti markii waa soo sheegay madaxtooyada shaahi laga cabiyay inuu bigaysaa inuu cadaysaa marka wax lagu kala dhuumanaya ma jirto wax lagu kala dhuumanaya ma jirto marka waxaan leeyahay oo isoo galiyay nimanyow inaan idin sheego ninka ina biixi maalinta kuraasida fadhiisataan ee laydin dhaariyo waa 7 bisha leeyahay intaana dilaalnimadiisa buu la wareegaya oo nin inuu tagaya ma jiro saddex habar jecel waxay iskula go'doomeen marba meel bay isla galayeen ka ahin wato munaafiqi mujrimkii wato iyo cali hamboole cali marreecaan hambada cuna hambo cuna hamba suge waa ninka gaashaanbur Axmed Faarax baabiye ninka la yiraahdo ina ka ahin waa ninka reer daayir ka takhalusay ee inantoodii qurahay goograda haystay kala gooyay goograda isaga kan boqorka sheegtay inkastoo reer daayir markay ilaahay wuxuu iska bedelayna aanan hayn meel aan ugu subayna bildig baan aan ugu subayna ma hayno laakiin saana wadana gaashaanbur Axmed Faarax burhaan iyo dirkiisa waa takhalus weey guddi baan samaysanayna qoriyaalaan isugu tagayna marka guddi xalaal oo dhaqan dawlad ku milmeen oo dadka xaqooda raadisa oo xaq ayaga maqan raadisa oo waxaanu dad ku leenahay deegaan nagaga maqan raadisa dhiig haday tahay xoolo nagaga maqan raadiya waxaanu nalagu leeyahayna bixiya oo reerka lagu leeyahay ka soo qaada ayaan anagu dooranayna nimanka gaashaanbur Axmed Faarax madax isu geliyay ee Rooble Axmed baabiyay ee caaqilada u sameeyay ee buurtoodii iibiyay shaqo ilaahay kuma lihin anagu halkaas aanu fadhina burhaan iyo dirkiisii waa rogmad weey ka baxa suuqa weeya taasina waa ta kale nimayow saddexda nin ee cayda abtiyaashood champion ka qaaday ma waa afar waa mid habar wala iyo saddex habar jeclaa waa cayda abtiyaashood iyo ku caan bixeen waa afartaas saddex waa habar jeclo nina waa habar wal abtiyaashood baa ilaahay ku salida marka shalay daraato waxa dhacay shalay aan ilaahdee ninkiina xaash intuu golo yimi madareedo abtiyaasho u yeedhay ayuu sida uma jeedino sidana uma jeedine siduu jeeday bal waayay ilaa wuxuu yiri beel cuqdad qabta oo garxad la yiraahdo yaa maayaradiina qabsaday baarlamaankana ugu badan siduu jeeday waayay cuqdad qabta oo islahayd Soomaaliland waxba ka noqon maysid yaa halkii baarlamaankana ugu farabatay ee barasaabiyadana ugu farabatay maayaradan le bal waayay muxuu jeeday مسو قولوا كله مسي عمامة كله سو عرّين كوي عاي هدونا هبرش على وحنا تريبا يورنا يا مركانو كقاباننا استقريبا يوهيلينيا وهو استقشانيا بالكيس بانو كوها ينايو وكسي دينا وايهاي كوها كلا عناقا يبوكايو يجيب استياف لغا دينيا نينكا نوو كتشرا ايوه إلا دهيبا نكدوني ندايدو كديسي إنو قولا كيرا هدو وان خلطمي وانو إيقادعي وانان إيري abtiyalna iga xaal baan qaata oo waan idhiye laakiin inuu isro rogo oo yiraahdo si kala loo turjumay maaha kaas waa maxamuud xaashi ka kalena weyna muraad adkaanta aynkan iyo aynkan hadda isku dhufu isro hooyadii aabi oo isku dhici waayay weyna muraad oo isagoo markuu wareejinayay yiraahdo abtiyaashay aan magbaan la bixiya hadduu magbaan la bixiyo saas oo la hadli lahaa بين واس ميران باين تنقول رشان وتوجه هدونا جوجردا جلنسة ما يلنا نروحها كصدق حتى صهري وبقربور مدو
oo dhulbahante ayaa ilaahay ku sallida hadday tahay dhiigooda iyo hadday tahay caydoodaba waxaa ogeydeen madan laysu yimi oo nin caano lagu shubayo cali barraa inuu yidhi abtiyaashay baa lahaan jiray meeshan layaa garadag dumarkana way ku kufsan jireen dadkana xoolahay kaga qaadi jireen garaadkii guud iyo jaamac siyaad iyo abtigii baa taagnaa oo dhinac taagnaa ka kalena waa ina biixi ka kalena 24/7 abtiyaashii waa caayasna waa jaahiliin anigoo wax dili kara duca qaadan maayo dabci qoriga hay furo waad aragtaan dee iyo beelba hablahooda aan la guursanayno caynkaasaan ahay waa idinka arkayay wixii ka baxayay isagana waa arkaysay afartaan nin markaasaa dad afartii nin u saabtumaya waxaana se idiin sheegaya nin haddaad aragta abtiyaashii ilaahay ku saliday cidhib adduunyada kaga tegi maayo waan daawaday oo isweydiiyey oo aan eega oo aan eega oo aan eega oo aan eega weli ma arag nin garxajis dhalo habar jeclaha oo abtiyaashii wallaahi hadda been idiin sheegi maayo ilaa waan ahay habar jecle weli maan arag nin garxajis dhalay ama habar yoons dhashay oo abtiyaashii wanaag kula socda abtiyaashii ka soo horjeeda oo xumaanka ka soo horjeeda hadda way dhaleen markuu baahdana iyagu u tagaa wax ka soo qaata wata aan yaabay markaa naaskiinana garxajis oo muxuu qabaa waa su-aal taa idinkaa idin taallaa garxajis bay taasi u taallaa bal naaskiinana wuxuu qabo ee markay baahan yihiin idin imanaya wax soo siinaysaan markay dhergaanna idinku dherag dhacsanayaan bal ka sheekeeya xibaa annagu yaabnay dee nin abtiyaashii lagu salliday oo ilaahay ku oranaya garxajis abaryonis baa waxaan wada waan eegaasa aabihii baa dhasheen oo isagaa dhasheen miyaanay mucjiso ahayn kuwa dhasheen annaga way nagu dhaartaanoo wallaahi waayo waxaa ka mid a ninka la yidhahdo caare markii uu baxay 100 jeer buu u dhaartay anigaygani caare telefoonkaan isku dhigno telefoonka yaan isku dhigno wuxuu igu yidhi nin maxamed abukoraa tahay waan isdhiibayaa inta la odhan lahaa abtiyaashay buu la dagaalamay nabadgeliyo intaan ku idhi ha isdhiibi abtiya inta jeer uu soo fadhiistay waxaan saynaa ninkaa baastee faraha igala baxa abtiya idinma socdo oo wallahi idinma socdo oo billahi idinma socdo oo tallahi idinma socdo waa idinkii arkay iyaguna ay yidhahdaan taaniyow ciidan soo kaxayso kaale inanka inantayadoo dhashay inantayada qaba dilli waka waxaan anigu bala eeg tusaale qura taasaan ka soo qaad maxamed cabdilqaadir ay dhaleen xusbigan kulmiya halkay dhigeen ya markaa waxaan la yaabanahay oo isweydiiyey ninkaa naaska miyaanu naasku qabanayn nin abtiyaashii qabsadayna wallaahi cidhib kama tago ina bixi cidhib ka tegi maayo ina kaahin abtiyaashii wuu jeceliye hadeege waa ciise muuse dhalay uu ka qabaa waa u dhintaa berbere isaga u qabtay intuu ku socdaaba oo intaa markaasuu garxajis iyo habar jeclo madaxa kaga taagan yahay wax kasta oo loola yimaado waxaanu ka qaataa lacag 10 kuna ulayaa VIB abtiyaashii u qoreen VIB ka warrama VIB buu ka qaataa laakiin sanin abtiyaashii iyo naaskiisa la culoobay hadday tahay ina biixi hadday tahay ina muraad hadday tahay maxamuud xaashi hadday tahay boqor buur madow waa intaynu aragnay dee iyo inta guuxaysay hoosena waanu aragnay waayo halkan ixtiqaar nala joogaan abtiyaashoodna xidh wallaahi oo billaahi oo tallahi inaan xidhib ka tegin caafimaadna aanay ku waarag anigay weydiiday ya aboodiga cirka iyo reer abtaan cawridood hadhin waad maqashay ninku hadduu abti godayaasha rag hore waxaan kasii sheekeeyey rag hore iyo waxaan kasii sheekeeyey aboodiga cirka iyo reer abtaan cawridood hadhin abtiga hadduu kuugu yimaado maalkaaga faraha looga qado oo laga dhaqaaqa ilaahay baa markiiba kuu soo buuxinaya adeerkaasi waa isqabsan kartaa oo danta reerka meel walba isku qabsan kartaa laakiinse
bal nimankaa ku taamaya tiyaasho ina bixi hooy waanu la joogtaa tii naaska siisay waa la joogtaa waa noo shay weli colaadoodu ku socda siduu u taacuba keenaya markay qabsatana iyagu u carara bal ka warrama miyaanay mucjiso ahayn marka waxaan leeyahay maanta oo nimayo uu soo geliyey taliyaha bilayska ee burcaan digniintii labaad siinaya dhalinyarada burcana waxaan leeyahay indhaha fura waa la idinku soo maqan yahay in laydin kala qaybqaybiyaa la doonaya golihiina deegaanka la shaqeeya xaqiina isu taaga xeertuu alif baa laga galgalanaya waxa la doonaya in civil war laydin geliyo in la isku kiin diro in dabeeto ay waxoodii walaaqdaan habar jeclana waxaan leeyahay guddidii deegaanka aynu berbere ku leenahay waad aragtaan deegaanka ilaa iyo batalaale ninkaa bad ilaahay naxariistiisa jannaa ka waraabiye nin yusfuha xaaji batalaale yes nimankii sheekh bashiir laa wey inaynu maamul samaysano wey sida ugu dhaqsaa badan inan yar oo xabashii inuu baddeenna ku dabaasho oo ummad ajnabi baddeenna ku dabaashaan waa laga wanaagsan yahay waa laga wanaagsan yahay maamul baynu ka samaysanaynaa meeshan degaan baa ilaahay inagu beeray degaankeenna waa u soo jeesanaynaa wax la wada leeyahay wallaahi ma jirto haddaan idiin sheegaya waynu goosanaynaa ilaa bat ama aan caynaba ku darsanno ama aan burco ku darsanno innaga inoo taallaa taasi laakiinse sidan lagu socdaa ee la doonayo in dadka la kala qaybiyo oo loo kala samaysto jibob la gashado wax aynu yeelayno aqbalayno maaha midda kale reer bari shir bari oo guud baan doonayaa in la isugu yimaado oo harti waqooyi garxajis bari iyo habar jeclo isu yimaadaan degaankooda ka tashadaan oo afartan baayac mushtari ee xaaraanta wax ugu xidhan yihin aan la dabagelin inta kalaa ka badan shacabkeennu inuu soo jeesto wey oo dhallinyaroy inaad soo jeesato wey oo wax la wada lahaado guddiyada munaafiqiinta ee laysu kala samaystay derajooyinka kale leh waa derajooyin baa laydin kala samaystay qaar hudheella isaga karaysan inuu hargeysay joogaan maasage kuwa gobollada jooga sanaag sool tog dheer bay usoo diraan kuwaasina kuwaa kasii hooseeyo ay usii qaybiyaan marka waxaan idin leeyahay waan idin sheegaya inaad ka takhalustaan waxa noocaas inaad ka takhalustaan oo aan laysu keen adeegsan oo aan noocaasi idin adeegsan oo idin kala furfurin waayo waa afar munaafiqo waanu idin qeexna waanu idin qooxna waa guddida gaashaanbuur axmed faarax guddida solomadow ee xasan mataan hogaaminayo iyo guddida gaashaanbuur axmed faarax ina burhaan hogaaminayo iyo ninkan timoweynta ah ee boqorka sheeganaya reer daahir ee guddida nabad iyo nolol waa waxa noocaas iyo wax kas iyo fariiqooyin yaroo kasii baxade keliya reer wal oo kale oo Somaliland deganna waa saas oo kale unde ila waxaan waynu ognahay waxba nagama qasooneen marka waxaan idin leeyahay anigu aaladahan soo galay inaan wax indhaa idin furo waayo aniga future-kayga lagu ciyaara kuwa yarin future-kooda lagu ciyaara inuu ma doonayay aniga ya ayaa future-kaygii lagu ciyaara kiiraaye muxuu ahaa ustari joogi jiray cornel fataxiir ay walaala ahaayeen ee tanalada madow ordi jiray iska qari jiray kamarada ee naasa loo samaystay ya wakaalka ka aytamaya ka warama marba waxbuu soo gashanaya nin magaciibu soo qaadanaya waka maxamed xuseen balag ayuu maantana soo gashaday waa noocaas propaganda lacag lagu siiya hadda waa naagna suulaya u ruuxaya ka waran de maxamed xuseen bal ka warrama magac nin leeyahay buu sitaa waana qariyay wejigiisa kabaradaana waa ka iska qariya naasana loo samaysto cornel fataxiir bay walaaliyiin oo hay-adii dhaqankaa keentay ustari meeshan ayuu joogaa habeenkii tanale madow buu ordaa
isagoo ruxaya okay waxaan ka hadlayaba garan maayo waxaan ka hadlayaba nin garanaya maaha waayo waa nin nimadiisi laga kaxeeyey oo naas loo samaystay nin cad u samaystay oo ruxaya ka war taasina waa ta kale aan ku soo celiyo inantii yaray ee lagala baxay jiingada ee la cabaadayay ee la leeyahay dhaqan aan hore u dhicin ee aan uga sheekeyn dhaqankani dhaqan Ethiopian yahay hal la soo baaro guryaha Ethiopia xuduudana la xidho hala la baaro waxaanan idin sheegaya qof garanaya inuu meesha gooyo oo kala baxay oo ka iibiyo hadu doono haddaan idin sheegaya waa dhaqan Ethiopian in qof yar inta la xado indhaha laga rido lagu dawarsado waa dhaqan Ethiopian marka dad iyaga ah ayaa lacag la soo siiyay ay xabashidu hadday doonto lacag soo siinayaan waxay oranayaan qof yar baanu doonaynaa ama inan dabadeeto ay way iibsanayaan qofkaasa u soo xaday waayo inside-ka outside-ka intaadan baadhin inside sidee ku ogaadeen halka uu jilicsan yahay albaabku halku yahay maqaskay ku gooyeen waa qof garanaya oo la dirisa ma garanaysa markaa waxaan idin leeyahay oo aan idin sheegaya horay u dhacday dulcad iyo xarshin inta laga xado caruuraha ayaa inta Addis Ababa iyo Dir Dhaba la geeyo indhaha laga riday lagu dawarsan jiray waa dad kaleedii walaalaana waa dhaqankoodii ila dhaqankaaga iyo diintaada markaad ka tagto ee aad qoomaluud keento waxa saarkiisa kugu dhacaya wax badan baan kaaga digi wax badan baan diinta kugu waabi aan ku ilaahay ka yaaba diinteena u soo noqda dhaqankeena wanaagsan u soo noqda oo abarasawaana keenteen oo khamiis u gelisay oo tinayaan la adibin dad gaalaha baa joogay eedaanka yaan la maqlay waxa saan idinka haynaa ilaahayna marka caalamooyinkaas idinku riday wax waliba marka oo dhaqan ahayo alahaydeen marka dhaqankaaga ka tagto dhaqanaadan lahayn waa ku imanaya de marka Maxamed Xuseen oo meeran oo laga bedelay bini'aadanimadiisii oo wax kale laga dhigtay isagoo nina inta magaciisa iyo wixiisiba la bedelay wax kale laga dhigtay oo aan ahayn ba wixii aynu ka hadlayno oo dhaqanka aan ka hadlayo isagu shaqo ku lahayn oo isagu wax allaale wuxuu yahay aadan garanayn oo meeran oo propaganda lacag lagu soo siiyo ayaa soo gelaya balka warraba oo doonaya inay nala doodina kari maayo mabda kama hadli karo balka warraba soo cay soo qoraya isagoo nin ahayn oo naasale sida dumar u dhadigadi imika waxa dhacay magaalada Toronto la yaado ayaa nin wixii iska jaro waxaan samaystay ayaa uu dhintay oo xanuunkii AIDS wax dilay way diideen wadaadada inay ku tukadeen wala diiday imika ka ciidan ku tukan maysa meedkiisa Maxamed Xuseen ciidan meedkiisa ku tukan mayso waayo nin buu ahaa ninnimadiisii iska qaaday naagna ma noqon wax kale uu noqdo ka warrama waxaa doonaya inay afka kula soo galaan iyagoo aad hayso taariikhdooda iyo waxa uu ku nool yahay iyo siduu u nool yahay iyo siduu yahay edeb iyo anshax iyo asluub iyo qiyaas ku fadhi aad iyo aad baan idin salaamayaa markaa waxaan leeyahay oo isoo geliyay kaliya taliyaha Blaze Ibrahim inuu digo mar labaad ha isku dayin baan ku wuri intaadan qaxin ha isku dayin oo meelad ka baxday aadan waayo ha isdhibaabayn waan ku digayaa imkaba ummadan dhalinyaradan waan soo jeedin xaqoodii bay doonayaan burca la kala qoqobo shaqo laguma laha xaqeedii bay burca doonaysaa xoolaheeda nool bay doonaysaa inay ku canshuurato burco adigana gaas iyo kabriid baa hargeysa lagaaga soo dhiibayaayo lambar haw kala samee baa lagu leeyahay dhiiggaagu yaanu laamigaa ku daadan oda haddaan kuu sheegaya ha isku dayin miskiin baa tahay waan ku arkay ashahaada dib ugu noqo nimankan korneylada baa dagaal nagu socdaaye dhinac uga bayd haddaad se soo raacdo waad ka horreynaysaa mushrik kaahin baan kusoo gunaanadaya ina kaahinow habar jeclo halka waa kala dhimateen adiga
wuxuu yidhi ma geedii how waxaan ku mooday ila maamulmaad hayni dowladdii tuura maalin baad hayso weyn mise weyn ma geedii how waxaan ku mooday cigaal shida mise waxaad noqotay mise waxaa loo noqon doonin ma waxa lagu haystay mise waxaad noqotay mise waxaan loo noqon doonin waxa lagu haystay nin mujaahida afartii sarkaal ee ugu horeeyay baxay nin soo halgamay nin dudumooyin soo seexday maalinta dudumada ku dhuumanaysa soo madalkeed fudka duduma kugu dhacay ayaa waxa la moodayay haliga qaran baa lagu moodayay laakiin se inaad haawoy tahay oo nin sacab daba qaado iya lama moodaynta iyo waxaan loo noqon doonin hungaa lagaa soo tahay abar jecel kaa taaganta wallahi inaan mujaahid dambe lagugu yeedhi ya ee waardiya lagugu yeedhaya waardiya reer daahir waxay u bixiyaan waardiye ina bixi waardiye ma garanaysa wax allaale waxaad habar jeclo naf u haysaa ma jirto aan dhiiggeeda inaad qabtaan waa deriskeeda ku jirto taasna waa la soo wada ogaaday waa la soo gunaanay marka intaas ay soo gelisay saaka inaan idin sheego marka waxaan idinkaga tegayaa ilmaadirayaa oo aan u sheegayaa waa in sidaa socdaan sanaag weyn gaadh laga hayaa imikaba waad aragtaan boqor buur madowna qurunkiisii iyo qashaabiirkiisii iyo wixiisii ayuu bilaabay geeri carabta wad wataa imaaraadku fadhiyaa sheekooyinkiisiibuu la soo noqday hala daawado telefoonkiisiibuu dagaalku hagaya anigu anigaa idiin sii dardaarmay lama sheegin hadhow ha odhanina meel ku qorta imikaba ma waxbaa dhacay meel ku qorta annaga oo nalo ummadii kuwii laysku dirayaa nala soo hadlay waxaanu runahayn annagu kuma hadalno waxbaanu idiin sii sheegno sidooda u aragtaan been propaganday qof iska erigii uma soo gallo annagu xaqiiqada inaanu ka basiino dadka oo aanu u sheegno waxa bili-aadmigu tabayo sool baana lagala soo hadlaa sanaag baana lagala soo hadlaa tog dheer baana lagala soo hadlaa saaxil baana laga soo hadlaa kuwa dulman marodijeex awdal saasaa ummadda soomaaliyed xaq meel kasta kismaayo wixii ka dhacay inaanu ka hadalno iyo cidda problemka ku wada midda kale aan idiin sheegayaane oo bal soomaaliya isu geeyo ilmaadirayaalow isu taga oo etoobiya way googo-aysaa maxaa meel inoo yaalla bal arninka qura ee ka jawaabaya waa kee ma jiro waa inan waliba tuulo yar buu ku maqan yahay iyo been yar yaa lagu maqan yahay qaaraddaa dhan ee naga maqan cid ka hadlaysaa ma jirto waayo waa siday u lahaayeen badda kenya leh saddexdii diinta masiixida ka fadin jiray hargeysa oo midhan baa tiindee aad iyo aad baan idiin salaamayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo sarageenna dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu